Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Mar kale waxaa kusoo dhawaataan cashir kale oo xiiso leh. Maanta waxaan ka hadli doonaa meeshan oo yaalo cashir ka mid ah cashirada bilowga ah mise loogu talagalay ardayda bilowga ah mise cashirada hooseeya. Waxa meeshan oo yaalo maanta waa mawduuca xayawaanada, majina magacyada oo wanyama xayawaanada. Badanaa meesha waxay u badan yihiin oo meesha yaalo xayawaanada duurka kale wanyama wa porini. Marka isla fiirino magacyada xayawaanada waa xoogaha kooban ayaa kasoo qabanay, wixii kalena waa qaadan doonaa insha Allah. Marka hore dhawaaqa ayaa isla fiirinayna, kadib ayaa macneynayna. Sawirkan uu hor yaalo ujeediin sawirada twiga, nyani meesha dhawaaqa iska fiiri. Nambarka labaad nyani, swara, fisi. Afaraad shanaad simba, kondoo, mbuzi, ngamia, ng'ombe, kangaroo. Twiga waa gari oo jeedin twiga. Nyani waa daanyeer, haddaad sawirka fahmin. Nyani daanyeer. Swara sagaaro. Nyani nya'da iska fiiri dhawaaqeeda. Nyani na'da iyo ya'da markay isku dhagaan waa hal eray, waa hal konsonanti, waxaa la dhahaa nyani. Swara sagaaro. Fisi waraabe, simba taas dadka badankood way yaqaaniin. Simba libaax. Kondoo waa ido. Mbuzi waa ari, waa ujeediin. Ngamia meeshaas dhawaaqeeda waxyar aan macnayno. Horta xarafka meesha yaalo waa nga. Xaraf kale ereyga labaad waa geel, kan lo'da ah waa nga. Hadhow dhawaaqa iska fiiri. Nga dhanxanigu ka soo baxaa kor weliba nga. Ngamia meesha u dambeysa ayadana iska fiiri. Nga markaa dhahdo ngamia hadhow uma akhrinaysid, ma dhehaysid ngamia, ma dhehaysid. Waxaa leedahay ngamia inay ya ku jirto camal. Ng'ombe xarafkaas kor ka saaran darteed sababayso in loogu dhawaaqo ng'ombe. Kangaroo. Ng'ombe waa lo, kangaroo waa bahal caloosha ayaa lagu qaato boodbooda. Sawirkiisa ujeediin badanaa Afrika lagama helo ayaa la dhahay. Marka waxaan u malaynaa casharada bilowga ah ayaana xoog saari doonaa maalmahan ugu dambeeyo si ardayda u ballan qaaday. Marka insha Allah ha lagu dadaalo qoraalkiisa iyo akhriskiisa iyo qaadashiisa cashirka. Mar walba isku day casharada inaad qorto. Hadaan cashirka qorin xoog saarna dhow oo kugu adkaana. Ardaydana waxaa ogeysiinayaa mise ku dhiirigelinayaa in bisha way cusub tahay kusoo biiraan qaybta online-ka mise kusoo biiraan qaybta iskuulka mise physicalka. Arday badan oo la soo xiriirtay rajeynaya inay bilaabeen weli aan bilaabin sababo jirta awgood dhibaatooyin ayaga dhinacooda, culays ayaga dhinacooda. Ardayda qaar in la soo xusuusiyo lagu dhiirigeliyo u baahan yahay. Marka ardayda casharada online-ka way socdaan, casharada physicalka way socdaan, kusoo dhawaada hana la soo diiwaan geliyo insha Allah. Wabillahi tawfiiq.